بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن شاء الله تعالى وحالك النوغب اللابن دونو مواضيع أما عشرة حناء وكسابسا قصص الأنبياء. أنبياء قصص كودا إن شاء الله تعالى waxaanu kusoo qaadan doonaa si kooban ambiyada quraanka uu ka waramayo ama quraanka dhexdiisa kusoo arooray ee lagu sheegay qisaskooda ayaan kusoo qaadan doonaa insha allahu tacaala. nabiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam abulbashar ayaan insha allahu cashirkeena koobaad uu noqon doonaa. qaala allahu tacaala fi kitaabihi alcaziiz إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا إلهي وحو دورتي سبحانه وتعالى نبي الله آدم أيو دورتي ونوحا نبي نوح أيو دورتي وآل إبراهيم وآل عمران أيو إلهي دورتي نبي الله إبراهيم ayaa ilaahay doortay iyo aalkiisi iyo durriyadiisii wa aala cimraan cala alcaalamiin. caalamka ayuu ka doortay oo ambiyadu dhammaantood iyo rusushu waa kuwa laga doortay, dadka basharka laga doortay, basharkana ugu khayr badnaa wey. sayiduna aadam waa abulbashar, bini aadankao dhan aabihii ay kasoo farcabeen weye. insaankii ugu horeeyey oo ilaahay uu abuuray subxaanahu wa tacaala wey. nooca bashariga la yidhaahdo oo bini aadamka ah yaa ilaahay ka abuuray. nebi aadam baa ilaahay ka abuuray. ilaahay baa fadilay subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi aadam. makhluuqa intiisa kale, makhluuqaadka intooda kale oo dhan baa ilaahay ka fadilay. yuu ilaahay ka fadilay. wuu ka fadli badan yahay nebi aadam nooca malakiga ama malaa'igta. waxaa kaloo ilaahay uu ka fadilay oo ka doortay nooca kale ee jinniga ayuu ilaahay ka fadilay. nabiyullaahi aadam calayhi wacalaa nabiyina afdalu salaati wasalaam ilaahay jannada ayuu ku abuuray. saacaddii ugu dambaysay ama saacadda ugu dambaysa maalinta jumcaha ah ee ayaamaha toddobada ah ugu fadliga badan ayaa ilaahay abuuray subxaanahu wa tacaala. sida xadiidka muslim iyo keyrkiiba ay warinayaan oo saxiixa kusoo aroortay, nabigu calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay maalin qorax soo baxda waxaa u khayr badan maalinta jumcaha. fiihi khuliqa aadam, nebi aadam ayaa la abuuray. nabiyullaahi aadam abuurkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala mashiicadiisa azaliga ah ayuu ku doonay inuu abuuro noocan bashariga ah uu ilaahay ahaysiiye subxaanahu wa tacaala. wuxuu ilaahay ka abuuray ardada ayaa ilaahay ka abuuray oo nooca dhulku uu yahay qaybihiisa oo dhan ayaa la kulmiyey oo qayba laga soo qaaday. markaasaa ilaahay nebi aadam ka abuuray. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu tilmaamay, wuxuu yidhi ardada noocyaheedoo dhan yaa ilaahay ka abuuray nebi aadam, min aswadiha, min abyadiha wa aswadiha wa diibiha wa radii'iha wamaa bayna dalik. fajaءa duriyatu aadam calaa qadri dalik. ardada noocyaheeda ayaa ilaahay nebi aadam ka abuuray. awlaadiisi iyo duriyadiisina anwaacdaas ayay ku timid. yacni dhulku meel adag iyo meel jilicsan, meel madow iyo meel cad iyo wax u dhexeeyo
ayuu leeyahay noocyaha uu dhulku yahay oo dhan baa ilaahay ka abuuray durriyadiisii iyo awlaaddiisuna dabeecooyinkooda iyo dhaqankoodu iyo midabkooduba sidaa ayuu isu khilaafsan yahay sida ay dhulka u kala duwan yahay ciiddu u kala duwan tahay aadam magacan ilaahay uu ku magac loo bixiyey ee nebi aadama macnihiisa waxay leeyihiin culummadu markay fasirayaan waxaa la yidhaha waxaa laga soo qaatay min adiimi alard ardada lianna ardada laga ahaysiiyey marka aadam yacni waa min alardi kii laga abuuray wey nebi aadam ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku abuuray khilqi iyo suuro aada u qurux badan oo aada u dheer oo aada u weyn baa ilaahay ku abuuray dhirirkiisu wuxuu ahaa lagu abuuray sida axaadiistu ay caddaynayaan 60 dhudhun buu ahaa ballarkiisuna 7 dhudhun ayuu ahaa aad bay suuradiisu u qurux badnayd oo ambiyada ilaahay wuxuu ka dhigay bini aadanka ilaahay uu abuuray kuwa ugu quruxda badan baa ilaahay ka dhigay lianna hoggaan iyo tusaale ayay ummadda u yihiin marka ilaahay wuxuu ka dhigay kuwa ugu khayrka badan ummadda xagga khilqada iyo abuurka iyo xagga khuluqa iyo dhaqanka labaduba kuwa dadka ugu fadliga badan oo ugu sarreeyo ayay ahaayeen nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay oo uu leeyahay ma bacatha allahu nabiyan ilaa xasana alwajhi xasana sawt nabi ilaahay ma soo dirin ilaa wuxuu ahaaday midka dadka ugu quruxda badan uguna codka wanaagsan oo ugu sawdka quruxda badan wa ina nabiyakum nabigiini wuxuu ahaaday waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam axsanuhum wajhan wa axsanuhum khuluqa sawta marka ambiyada ilaahay kuwa laga yani ambiyadu waxay ahaayeen kuwa laga doortay ummadda oo dhinac kastaba ugu kaamilsan ayay ahaayeen abuna aadam ilaahay subxaanahu watacaala jannada ayuu geliyey jannada dhexdeeda ayaa lagu abuuray ilaahay wuxuu ku yidhi subxaanahu watacaala jannada yacni intaa doontaba jannadaasaan kuu baneeyey ku noolow ku raaxayso geed baa ilaahay ka nahayey subxaanahu watacaala inuusan taabanin waxaa ilaahay subxaanahu watacaala nabiyullaahi aadam ka abuuray feertiisa ummuna xawa oo zawjadiisi ah yaa ilaahay ka abuuray ilaahay baa u xallilay oo ummuna xaawo markii ilaahay abuuray subxaanahu watacaala sida dadkan kale bini aadamka ah marka ay dhashaan intay yaraanu ku dhashaan ay soo koraan ma aysan ahayn markii la abuurayba ayadoo weyn oo kaamila ayaa la abuuray ilaahay baana u xallilay nabiyullaahi aadam in ay wada noolaadaan oy wehel u noqoto ayaa loogu abuuray xawa waxaa loogu magacaabay liannaha khuliqat min xayin qof nool baa laga abuuray jannada ilaahay geliyey labadoodaba oo ilaahay uu ku dhex abuuray jannada nicmadeeda iyo waxa dhex yaallo dhan baa ilaahay u xallilay ilaahay wuxuu ku yidhi yaa aadam uskun anta wa zawjuka aljanna wa kulaa minha ragadan xaysu shi'tuma walaa taqraba hadihi shajara fatakuna min alظaalimiin jannada dega jannadaa ku dhex noolaada jannadaa ku raaxaysta geedkaa ha u dhowaanina waxa kaleeto dhan oo jannada dhexdeeda ah xalaal buu idin yahay ha u dhowaanina geedkaas yaa ilaahay ku yidhi subxaanahu watacaala nabiyullaahi aadam markii ilaahay uu abuurayey nooca basharka ilaahay uu doonay inuu abuuro malaa'igta ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku yidhi
waxaan abuurayaa khaliif ayaan abuuri doonaa dhulka yacni khaliif ka noqon doono. malaa'igtu markaa ilaahay bay waxay ku yidhaahdeen subxaanahu watacaala, dhulka ma waxaad yeelaysaa qof fasahaadiyo oo dhiig ku daadiyo oo ku caasiyo, miyaad dhulka ku abuuraysaa yaa rabbi? sidaasay yidhahdeen. ilaahay subxaanahu watacaala xigmaduu asaga og yahay oo in ayagu ogeyn ayuu makhluuqiisa u abuurayaa. ilaahay baana tasarufka iyo maamulka asaga ayaa iska leh. marka ilaahay nooga qisoonayo, waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii jaacilun fi lardi khaliifatan qaluu atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dima'a wanaxnu nusabixu bixamdika wanuqadisu lak qaala inii aclamu ma laa taclamuun. ilaahay wuxuu ku yidhi malaa'igta waxaan yeelayaa ardada khaliif baan yeelayaa. waxay yidhahdeen ilaahayow ma qof ardada dhiig ku daadiyo oo fasahaadiyaad yeelaysa, annagu waxaan ku sugannahay cibaadadaada iyo inaan ku dahirno oo wixii aan kuu cunamin oo dhan aan kaa dahirno. ilaahay wuxuu ku yidhi wax adinku iina ogeyn ayaan ogahay. ilaahay subxaanahu watacaala nabiyullaahi aadam markuu abuuray wuxuu baray ashyaada ama waxyaalaha macluumaadkee la ogaadoo dhan magacyahoodii ayuu baray. marka malaa'igtii ayuu wuxuu ku yidhi u tag nebi aadamow, malaa'igta u tago waxaad ku tidhaahdaa asmaa'a kulli shay, wax la arka magaciisa ii sheega. marka way garan waayeen. marka nebi aadam ayaa ilaahay wuxuu ku yidhi u sheeg asmaada ama shay kasta magaciisa. wacallama aadama alasmaa'a kullaha, asmaadoo dhan baa ilaahay baray. malaa'igtiibu wuxuu ku yidhi ii sheega, anbi'uunii biasmaa'i haaulaa in kuntum saadiqiin. markii ay garan waayeenna nebi aadam ayaa markaa u sheegay wax la arkaba magaciisa ama waxyaalaha macluumaadka ee la ogaado asmaadoodii oo dhan buu u sheegay. marka ayaa ilaahay wuxuu ku amray inay u sujuudaan nebi aadam sujuudu taxiyatin wa salaam, inay u sujuudaan. malaa'igti ayaa u sujuuday. markaas waxaa sujuuddii ka haray oo diiday ibliis oo markaa malaa'igta ku dhex jiri jiray. malag muusan ahayn ibliis, malaa'igta ka mid muusan ahayn, laakiin malaa'igta ayuu ku dhex jiri jiray. markii malaa'igtii lagu amray inay sujuudaan, asagu sujuuddii ayuu diiday oo wuu ka haray. marka ilaahay wuxuu ku yidhi maxaad uga hartay sujuudda? inaad sujuuddo maxaa kuu diiday? ibliis halkaa ayuu cisyaan iyo isla weynin iyo kibir ayaa galay oo wuxuu yidhi seen ugu sujuudayaa axad dhooba laga abuuray? aniga waxaad iga abuurtay naar, asagana dhoobaad ka abuurtay, sidee baan ugu sujuudayaa? marka kibir ayuu yacni darteed ayuu ilaahay amarkiisii u caasiyey. ibliis lacnad baa ku dhacday, waa la lacnaday. markuu ogaaday in uu raxmadda ilaahay laga dheereeyey, mar dambena uusan helayne lacnadu ku dhacday, ilaahay wuxuu weydiistay in loo kaadiyo ilaa iyo maalinta dadka la iska soo saarayo, qiyaamaha laga gaaro, yawmulbacsiga la isi soo saarayo. ilaahay wuxuu ku yidhi ilaa wakti macluuma ayaa lagu kaadinayaa. waktiga macluumkaa waxa weeye nafkada hore ay dadku ku dhimanayaan, wax kastoo xaya uu ku dhimanayo, waktigaas ilaa intaas ayaa loo kaadinaya. marka ibliis oo la siiyey nafkadaas ayuu ku dhiman doonaa intaan midda labaad ee bacsiga la gaarin. nafkada hore ee wax la arkoo noolba ay dhiman doonaan ayuu ku dhiman doonaa. marka ibliis wuxuu markaa bilaabay
nebi aadam siduu u fidnayn lahaa jannadana uu oga soo saari lahaa xigmo hore ee ilaahay uu doonayna dee horreysayna way jirtay. marka wuxuu ku yidhi nebi aadam buu u tegay, wuxuu ku yidhi ilaahay geedkaa wuxuu idinkugu diiday. geedkan waxaa la yidhaha shajaratul khuldi baa la yidhaha, qofkii cuno ma dhimanayo, waa geed lagu waaro. marka geedkan cuna. nebi aadam wuu diiday, arrintaa ma dhici kartuu yidhi, ilaahay waa iga reebay geedkan. marka dhinac kastuu oga yimid. umuna xaawa ayuu sidoo kale ku yidhi, wuu waswaasiyey ilaa markii dambe uu u dhaartay oo been uu ugu dhaartay in geedkan uu yahay shajaratul khuldi. markii uu dhaartay ayay marka aamineen oo waxay u malaynayeen inaan axadna been aan ilaahay unu ugu dhaaranaynin. geedkii ayay sidaa ku dhadhamiyeen, markaasaa jannadii laga soo saaray oo dhulka ayaa loo soo saaray. waxaa la yidhahdaa muddada nabiyullaahi aadam uu ku noolaa jannada waxay ahayd 130 sano. nebi aadam 1000 sano ayuu cumrigiisu ahaa, 130 sano ayuu jannada ku noolaa, inta kalena ardada ayuu ku dhammaystay. dhulka markay usoo degeen nebi aadam wuxuu kusoo degay baa la yidhaha oo ilaahay uu ku dejiyey ardul hindi meel ku taalo oo meel hawadeedu aada u fiican tahay baa la yidhaha, adduunyada meesha ugu hawada fiican weeye ayaa ilaahay kusoo dejiyey. umuna xaawana jidda oo xijaaz dhulkan sacuudiga jiddo meesha la yidhaahdo ayaa ilaahay kusoo dejiyey. muddo ayay kala maqnaayeen, markii dambena waxay isugu yimaadeen carafo ayay isugu yimaadeen oo banaanka carafo ayay ku kulmeen. markii nebi aadam ilaahay uu dhulka keenay, ilaahay wuxuu ugu talagalay subxaanahu watacaala xigmadiisa azaliga ah inuu ardada khaliif ka noqdo oo dhulkan manaaficdiisa iyo maamulkiisaba asaga iyo durriyadiisa ayaa ilaahay ugu talagalay inay khaliif ka noqdaan oy ku noolaadaan.